allah u naxariistee waxaa magaaladan London maanta ku geeriyooday Axmed Cabdinuur oo ka mid ahaa wariyaashii Soomaaliyeed ee magaca weyn ku lahaa bulshada dhexdeeda. Axmed waxa uu ku xanuunsanaa magaalada London labadii toddobaad ee u dambeeyay. Axmed Cabdinuur waxa uu ku dhashay magaalada Ceelbuur sanadkii 1955. waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare ku soo qaatay magaalada Muqdisho. waxa uu dhigtay jaamacaddii Lafoole. Axmed waxa uu ka mid noqday wariyaashii raadiyo Muqdisho 1982 isagoo ka mid ahaa raggii ugu firfircoona. waxa uuna ka mid ahaa wariyaashii lagu furay telefishinkii Soomaaliya horaantii 80-kii. Axmed waxa uu ku soo biiray BBC-da sanadkii 1997 isagoo noqday wariyihii BBC-da magaalada Muqdisho ee ugu soo warrami jiray xilliyadii hogaamiye kooxeedyada. waxaana markii dambe uu u wareegay xafiiska BBC-da ee Nairobi ilaa iyo markii dambe uu ka howl bilaabay daartii Bush House iyo xafiiska BBC-da uu ka shaqaynayay. waa halkan aan hadda idinkala hadlaya ilaa iyo 1919 uu shaqada ka fariistay. haddaba maxamed axmed xaaji cagmadhige ayay muddo dheer isla soo shaqeeyeen. axmed cabdinuur waxa uu ka mid ahaa raggii dhallinyarada ahaa ee ku soo biiray 80-kii ee radio Muqdisho. anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa in yar ka horeeyey. kadibna waxa uu ahaa macallimiinta waxaana wax ka dhigi jiray iskuulka la yidhaahdo Yaasiin Cusmaan oo ku yaala magaalada Muqdisho. warbaahinta markii uu ku biiray waxa uu ka mid ahaa raggii barnaamijka ciyaaraha iyo weliba wararka oo xafiiska wararka ka tirsanaa. burburkii kadib waxa uu ka shaqeeyey Muqdisho isagoo wakiil u ahaa qaybta af Soomaaliga ee BBC-da. kadibna London ayuu yimid halkaa uu shaqaalaha ka mid noqday tan iyo intii u dambeysay. axmed ilaa 2 toddobaad ayuu xanuunsanaa siday ii sheegtay xaaskiisa maaragtay Zaynab oo runtii aan uga tacsiyadeynayno guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan. axmed cabdinuur nin dhallin yar isagoo ah oo ku biiray idaacadda tan iyo inta uu maanta ka geeriyooday nin dabeecaddiisu ay isbeddesho ma aanay ahayn. haddaba si aan taariikhda Axmed Cabdinuur aan wax badan uga sii sharaxno waxaa qadka xarunta wararka hadda si toos u fadhiya wariyeena Mawlid Xaaji Cabdi oo muddana isla soo shaqeynayeen. Mawlid, bal shakhsiyan bal noo sheeg Axmed qof caynkee ayuu ahaa? cismaan waa mahadsan tahay. dabcan horta ilaahay ha u naxariisto Axmed. barnaamijkeenan maanta wuxuu ku soo baxay si runtii aad iyo aad u adag. waan la soconaa xafiiska joogtay saabiin waxaana sugaya daawadayaal badan mooyaane aad bay u adkayd runtii saaka markii geeriduna soo gaartay Axmed sida xafiiska looga dareemay iyo dhammaan BBC-da qaybaheeda kala duwan xitaa qaybaha afafka qalaad. Axmed runtii dadkii ugu dambeeyay isla shaqeeyaan ayaa anigu ahaa gaar ahaan barnaamijka ciyaaraha ee timinta tooska ah. sidoo kale Axmed qaybtii ugu dambeysay wariyaashii sila shaqeynayeen raadiyaha markii la xirayay 2009 iyo 2019 February ayaan ka mid ahay qaybta xafiiska London markii la xirayay. Axmed aan si gaar ah u xuso maanta maraan marayay xafiisyada BBC meel ka mid ah waxaan soo xasuustay meeshuu fariisan jiray. wuxuu ahaa nin xitaa markii shaqada lagu jiro jecel meel gaar ah inuu fadhiyo sida yani nin asluubtiisa siday ahayd iyo dhowrsanaantiisa iyo shakhsiyadiisa markaan ka hadlayo oo kale. xitaa meeshayna ku cuntayno maqaayadda oo kale markaynu xitaa isku nimaano oo aynu dabcan inaynu wada cuntayno xitaa Axmed wuxuu ahaa nin isagoo meel gaara fariista. xitaa kursigiisa wuxuu ahaan jiray kursi aan isbedelin oo jecel inuu fariisto. subaxii markaa xafiiska soo galayno oo kale wuxuu jeclaa markuu inuu yimaado shaqada xilli hore ka hor xilligiisii wuxuu jeclaa inuu fariisto meel kadinka hore oo xafiiska ka tirsan. halkaas ayuu cabaar fadhinaya nus saac kadib xafiisku soo gali jiray. galabtii markuu baxayana meeshaasuu fariisan jiray. nin wuxuu ahaa afgaaban oo aad iyo aad qof kasta oo BBC-da ka tirsan iyo qof kasta oo yaqaanaba Axmed aad u jeclaa. shaqada markay timaadana wuxuu ahaa nin shaqada jecel oo marka qaarkood aad arkaysid inuu ka hormarin jiray waxyaalo badan. cibaadada markay timaado wuxuu ahaa nin asluub badan oo cibaado badan. waxyaalaha kale oo aan aadka u xusu karna waxaa ka mid ah Axmed markaynu ka sheekayno waxa aniga oo dhan adiga iyo aniga iyo asxaab badan oo BBC-da ayaa wax ka bartay Axmed waxbarashadiisii. qaybta BBC-da waxbarashada ama akademiyadda ayuu sidoo kale gacan uu ka geystay oo uu soo saari jiray barnaamijyo iyo warar loogu talagalay dadka inay ka faa'iidaystaan gaar ahaan da'yarta. waxaan oran karaa wuxuu ahaa haliyey, waxaan oran karaa tiir,
waxaan oran karaa udub dhexaad inuu ahaa saxaafadda Soomaaliyeed waa tahay isla markaasna BBC-dana qof weyn oo runtii ka baxay waana dareemaynaa maanta xafiiska oo dhan waa laga dareemaya Cismaan aad baad u mahadsan tahay Mawlid Xaaji Cabdi ayuu ahaa oo taariikhda Axmed noo soo koobayay Axmed wuxuu ahaa qof dabeecad gaar ah oo aad ugu wanaagsanaa dadkana gacan qaban jiray shakhsiyan si aad ay ii taabatay ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Axmed Cabdi Nuur